gudida taakulaynta abaaraha ee gobolada galbeedka Soomaaliland barsaabka gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleemaan Ramaax iyo qaar ka mid ah uqaasha gobolka Awdal oo shir jarayd oo maanta albaabada ay u xidhnaayeen ku qaatay hotel Rays ee magaalada Boorama kulankaasi oo isku xog wareysanayeen biyahanba abaartii baahsaneed ee ku absatay gobolada Awdal iyo Saleel dib kulankaasi markii uu soo gabagaboobay ayaa saxaafadda waxaa si wada jir ula hadlay xogayaha guud ee gudida abaaraha iyo gudoomiyaha gudigaasi waxayna ka dhawaajiyeen ugu horeyn marka waxaan ku bilaabaynaa baaq mahadnaqa oo u jeedinayno dhammaan dadkii ka qayb qaatay taakulaynta abaaraha ee gobolada ku absatay waxaan ku bilaabayaa gudida taakulaynta abaaraha gobolada Awdal iyo Saleel waxay mahadnaq ballaaran u jeedinayaan marka koowaad Eebbe subhanahu wa ta'ala marka kadib waxaa mahadnaq ballaaran gudigu u jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland golihii wasiirada ee nagala shaqeeyay arrintaasi aad waxaan ugu mahadnaqayaa dadka baaqa ku qoraa oo ay ugu horeeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu horeeyo yaan mahadnaqaynaa waxa kale oo mahadnaqaynaa dadka ka qayb qaatay oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland yaan mahadnaqaynaa iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasaaradda cid ka soo qayb qaadatay waan ka mahadnaqaynaa waxa weeye ujeedadii waxa weeye wajigii koobaad ee gudidan aanay abaaraha heer gobol way soo dhameeyeen oo gobolada aanay waxay soo qaybiyeen raashina badan iyay soo qaybiyeen waxa la soo qaybiyay 32,000 oo qoys raashinadood baa la soo qaybiyay waxa kale waxa weeye maanta aan kowdka aanay ku jira aan kowdka gudida abaaraha ee heer gobol waxa ku jira 165,000 oo dollar iyaa ku jira maanta ay ku jiraan ma bari galabta ma sheegayo waa maanta ay ku jiraan wax dayno la nagu leeyahay ma jiro wax dayna oo maanta la nagu leeyahay bari keena la noodhanayaana ma jiro geestiisa barsaabka gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleemaan Ramaax oo hadalka qaatay ayaa ku nuuxnuuxsaday sidii ay reer Awdal uga qayb qaateen iyo gabi ahaanba ummadda Soomaaliyeed gurmadkii abaaraha ay ka dhacay gobolada galbeedka bay ahaayeen odayadayadii bay ahaayeen aqoon-yahankayagii bay ahaayeen ilaahayna waxaan uga baryaynaa in ilaahay abaalmarintooda uu siiyo waxaan leeyahay dadweynaha reer Awdal iyo Soomaaliland dhammaantoodba inay u abaal hayaan gudidaasi oo wali la arag gudi hawl loo diro intay wixii xisaab xidhkeedii keento waxaasna waanu haynaa waxaasina waan qabanay waxaasina way inoo yaalaan maxaynu qabanaynaa taa markaanu aragnay waxaanu isla garanay dhammaan salaadiintii iyo nistambeedkii gudidaasi maamulkii dawliga ahaba in ay dub hawshoodii u bilaabaan waa qodobka ugu horeeyay ee aanu isla qaadanay kaasuu noqday waana gudi gobol ahaan aanu aqoonsanahay lagana ictiraafsan yahay qoraalkoodina aanu u gudbin doono cid ay khusayso qodobka labaad aan isla qaadanay wuxuu ahaa in loo bedelo gurmadkii abaarta wali way taagantay sidoo buuxan inoo sheegay doctorku inoo fasirayay waxa weeye roobkii uu daay nimco badan baa dhacday dad baa inaga dhintay beeru inaga qaaday laftigiisu wadooyinkii baa go'ay ilaa 4 wado magaalada soo go'ay go'an shalaytaan kormeer baan ku jirnay xaloo dhan waan soo soconay waxa weeyaan in wax laga qabtay runtii u baahan tahay sida darteed waxaan u bedelaynaa raashin qaybintii iyo tuule heblaayeen maanta meel geynaynaa wixii inoo yimaadee kale waa gaar laakiin waxaan u bedelaynaa waxa maanta la hayo horumar baa loo bedelayaa inaan beeri ku qodno in dhaamam lagu qodo iyo wixii la mid ah iyo in qalab loogu soo iibiyo ay ka mid yihiin cagafyadii iyo wixii la mid ah taasina waa qodobka labaad ee aan isla qaadanay waxa iyaduna inta noo dheer in aanu shirkii halkan madaxweynuhu maalintii roobka inoogu ducaynayay aanu ku galay ee safarkiisii ahaa 3 meelood gobolka in loo sameeyo oo ah daaq loo xidho xoolaha maadaama ay tahay waxaynu haysanaa ee lafdhabarta inooy xoolaha nool ay yihiin in 3 meelood
howlgalkeedii la bilaabo wasaaradii ku shaqo lahaa iyo gudiyadaanu magacawnaynaa inay ka howlgalaan si dhaqsaana looga howlgalo isla wiigan in laga howlgalo qodobadaanu isla qaadanay intaasaa ka mid ah gudiyada dambe la magacaabay gudidu soo igmato iyo farsamo yaqaaninta waayo daawli waa lagu kala duwanyo hadda ninba aniga igu lahaa daadu xagga xeebta yabaatay xagga beeraha runtii waana runtii wasaaradii ku shaqada lahaa iyo hay'adii ku shaqada lahaa iyo gudiyada khaaska ah ee loo diro ayaa noo soo ururinaya waa salaamantiin shirkina weyno isku soo wada duuba gudidani ayaa markii koowaad ay la hadlaan saxaafadda ugana warbixiyaan arrimihii abaartu halka ay ku dambaysay Xuseen Catiye Jama Xuseen Gaafne isla Boorama